السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي قيمة بدن كحرن جنال كنا يوتيوب سهلتي وأمرك لي عشرة ذني تحناها عشر كان الشنات ما أنت حنقو قادننا بي سي سيدا كلا عشر كقديس حنقو رح قادننا سيدا لاقي بيو بارتيشن أو هادسكا سيدا لغا لو كل تشبيو هدي هل وكوية سيدا سينقو قادننا أوكي أنس لسعنا قابكي أم سيدا أيو أصفر ما بيسيga wuxuu la mid yahay icons kale ayuu la mid yahay kow inaan dul tagno double click aan niraano qaabkan wuu soo furma sidoo kale waxaan u soo furi karnaa inaan dul tagno right click aan dhahno kadibna open aan dhahno sidaan haye okay sidee maarta loo qaybiya ama maarta partition aan uga dhigayna hadiska waan dooranaynaa kadibna waxaan leenahay right click waxaan ka sii dooranaynaa meesha ay ku qoran tahay manage halkan inoogu dhuf okay wuu soo kacayaa waan sugaynaa waa kan wuu inoo soo kacay markii maarta daaqadan ay kusoo furanto ama qaabkan uu kugu soo kaco waxaan dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay disk management halkan ayaan click siinaynaa okay iyadana way inoo soo kacaysaa waa kan marka diskaha waa maarta sidaan u jeedno hadiska computerka hadda waxay banaan 400 maarta 65.75 gigabyte oo ah ama GB ay banaan taas macnaheedu waa maxay marka hadiskayga inuu yahay 500 GB inta kalena maskaxda computerka ayaa qaadatay meeshan waa C-ga computerka C-guna sideeda waxay xiriir la leedahay window computerka haddii hadda window-ga cilad ay kaaga dhacdo ama ay noqoto inaad bedesho xogta ama macluumaadka ku jira sidan lama badbaadin karo laakiin waxaad samaysanaysaa anigu hadda D ayaa ii samaysay qaybtan meesha inoo qortay sahaltig waa maarta computerka kuma imaanin waa waxaan anigu samaystay waxaan ka dhigtay ilaa iyo 200 gigabyte ama 200 GB ayaan ka dhigtay si aan hadhow xogtayda aan ugu keydsado marka computerku haddii ay cilad ku dhacdo ama maarta window-ga haddii uu bedel ka noqdo ay maarta interrupt ka noqdo xogtaada dhan halkan ay soo keenaysaa ama xogta halkan kugu jirto way ku badbaadaysaa laakiin waxa la wixii la xiriiray C-ga waa marta kuma badbaadayo hadda tusaale C-ga waxa la xiriira waxyaabahan oo dhan C-ga ay la xiriiraan icons kan hadda banaanka yaal C-ga ay la xiriiraan hadhow marka haddii la yiraahdo waxbaan computerka uu wax ku dhaco ama marta window wala bedela haddii la yiraahdo waxyaabahan oo dhan waa off way baxayaan okay inagu ali marka sidee ayaan sidaan oo kale haddii uu halkan meel oo kaliya ku sameeyay si uu kaliya ku sameeyay qayb labaad oo sidaan oo kale sida u sameynaysaa waxa jirto wax la yiraahdo marta partition of hadiska waxaan dul tagayaa tusaale C-ga anigu way qaybsan yahay laakiin adiga ayaan rabaa qaabka aad u samaysan lahayd inaan ku tuso waxaad dul tagaysaa C-ga okay C-ga markaad dul tagto waad marta dooranaysaa kadibna right click leedahay right click markaad dhahdo meeshan ay ku qoran tahay shrink value halkan ayaa ku dhufsanaysaa okay click inoo dhig xoga waqti yar ayuu qaadanayaa oo maarta wuxuu ku leeyahay please wait xoga in yar dulqaado si waxba degdegin markuu inoo soo kaco halkaas ayaan shaqadeena ka sii wadaynaa waa kan uu inoo soo kiciyay wuxuu inoo soo kiciyay horta meeshan daaqadan yar aan xoga faahfaahin yar ka bixiyo meeshan inoo qoran total size mujida cabirka guud uu C-gu inuu yahay waa 2000 maarta aan iraade 271,514 oo ah MB waa okay hadda wuxuu ku leeyahay marka amount space-ka oo hadda aan sameysanayn wuxuu nooga dhigay 5336 marka sidaan ognahay daaqadan hoos inoo keen kor u qaadan iraade waa ujeedaa meeshan wuxuu ahaa maarta 265.15 gigabyte ama GB ayuu ahaa wuu buuxiyay xogaa maarta 2700 iyo ka dhigay marka meeshan qiimahan hadda isaga ku siiyay sidiisa okay u dhigi kara sidiisa ayaan okay ku leeyahay kadibna wuxuu ii sameynayaa cabir ayuu ii sameynayaa haddii aad u baahan tahay marka tusaale hadda C-ga waa 260 GB 65 GB marka haddii aad rabto inaad kala bar ka dhigto C-ga D inaad isku cabir ka dhigto haddii aad u baahato waxa sameynaysaa meeshan qiimahan oo ah 271,514 ayaad laba u qaybinaysaa laba markaad u qaybiso
qiimaha kale halkan ayaad gelinaysaa kadibna equal ay ku noqonayaan c-ga iyo d-ga equal ay ku noqonayaan anigu hadda waxba yaanan cabirkaasi qaadanin cabirka waa kusii darsan karaa balse hadda waxaan rabaa intaan oo keliya oo isaga hadda uu isiiyey oo mb-ga inaan soo qaato kadibna shirinka aan dhaho saan markuu kusoo baxdo aad rabto qiimo ama cabirka aad u baahneed markaas markaa qaadato waxaad leedahay shirinka halkan ku dhufanay okay xoogaa shaqo yar ayuu inoo wadaa yes waa kan hadda waa 5,000 iyo xoogaa ayuu ahaa wuxuu nooga dhigay marka 5 GB iyo 21 okay saan markuu ka yahay waa ujeedaa weli ma dhamaystirno oo ma samaysna waa sidaad ujeedo maaragtay meeshan sahalti d-gana waa blue meeshan c-gana waa ujeedaa laakiin meeshan waa maxay black waa marka waan dhamaystireynaa oo hadda partition waan sameyn waa kala jibinay laakiin weli maaragtay kama dhigin sidii la rabay okay waan dul tagaynaa right click aan leenahay right click markaan nahno new symbol value halkan aan ku wadayna kadibna next ilaa ya xaraf uu inooga dooro hadda c iyo d way inoo samaysanta xaraf kale inoo xigo uu nooga dhigi karo waa maxay e wa aan isla socono marka new symbol ku dhufo kadibna next welcome ku dhahay next aa leedahay waa kan mujida wuxuuna siiyey feeray maximum disk space hadda aan qaadanay waa 5,320 iyo maaragtay 36 waa maaragtay 5 GB iyo 21 MB sidaan hadda kusoo aragnay kadibna next ku sii wad waa kan xarafka noo qaatay waa maxay drive letterka noo qaatay waa maxay e-wa ma isku bedeli karna waa kuwan waxaan oo dhan waa xaraf zadan ka dhigi karna a b c d e ila iza marka aniga hadda e-giisa noogu daa kadibna next noo dhe next markaan dhaano next ku sii wad waa kan finish had mujida wuxuu la mid noqday c-ga iyo d-ga kale iyo la mid noqday waa mid 5 GB iyo 21 hay okay aan fiirina marka aan soo furno bal pc computerka aan soo furno laba hore inoogu samaysneed mid saddexaad ayaan karabna waa local diskiga iyo saltig hore noogu samaysnaa haddana muxuu noo keenay iyo ayuu noo keenay new value magaca waa laga bedeli karaa marka qaabka ay magac loogu bedelaa waa dooranaysaa right click leedahay kadibna rename meeshan maaragtay sahaltig waa maaragtay waxaan ku qori karaa tusaale Osman kadibna enter inoo dhe yes waa ninkan uu kusoo qabanaya kadibna continue waa tamijida Osman xarfaha maaragtay isaga iska raacinaya marka c d e okay sidaan oo kale saddex uu ku yahay tusaale computerka waxa laga yaabaa inaad maaragtay xogahan badan amartay ilaa iyo 3-4 oo kale uu kugu samaysan yahay qaabkee ayaad u celinaysaa ama halkan aad ugu dhaganaysaa ama laba kamid ah aad u soo reebanaysaa okay let's go marka aan soo kicinayna pc-ga computerka dul tagaynaa right click aan leenahay kadibna manage xogaa cashirka waan boosinayaa waxaan ugu dan leeyahay in maaragtay time badan uusan naga qaadan cashirka lagu caajisin okay waxaan sii dooranaa marka disk management wadada hadaan marayna disk management aan dooranayna kadibna waa kan hadda waxay noo dooran c-ga maaragtay e iyo d saddex maaragtay oo ah partition of disk saddexdaas aan u qaybinay inoo dooran markaan rabno inaan soo celino marka kan aan soo celino ama labadan xitaa markaan rabo inaan soo celino koow waxaan value-gaan qiimahan aan daleedayna yes ilan waxooga noogu jirto aan daleedi karno kadibna waan daleednay markaan daleednay kadib c-gaan tagana waxaan ku celinaynaa marka sidiisa right click aan leenahay kadibna external value meesha ku qoranta ma jirto halkaan aan sii doornay right click next finish waan celin hadda dibadda aan u baxno oo maaragtay gadaal aan u laabano oo maaragtay pc computerka aan soo kicino right click open waa kan hoojida hadday waa maaragtay saddex ay noo ahayeen hadda labadooda ayaan ku soo celinay marka aad rabto inaad soo celiso waxaad samaynaysaa wadooyinkan ayaad maraysaa markaad soo kiciso pc computerka disk management aad tagto waxaad sameynaa maaragtay midka aad rabto inaad celiso tusaale xogta waa kala baxday marka xog kala baxdo waa dooranaysaa right click leedahay kadibna value ku iska daleedaysaa qiimaha value ama formaada ka dhigaysaa markaad dhahdo kadibna wax maaragtay mid kala dul tagaysa kalarkaas bedeli doona meesha marka midka labaad meesha aad rabto inaad ku celiso tagaysa kadibna right click leedahay external value halkaas ka sii dooranaysaa
next ku wadaysa ilaa iyo finish. Sidaas ayaad maaragtay aad u samaysan kartaa qaybinta maaragtay hadiska ilaa iyo maaragtay inta doonto ay tiga dhiganaysaa. عشركني شنات هل كسي نوجي كذا إنه تقولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا هذه الجانب في القصة سبسكرايب ونصر.